بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا Soomaaliyeed meelad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku amayeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah uu fi inta baahan Allah deeqoynta bogta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiintan Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. muddo dheer kadib maanta saddex qodob baan ka hadlayaa. qodobka koowaad waa safarkii madaxweyne Xasan Sheekh ku tagay Kenya kelmadaan ka oranaya colaadaha uu abaabulaya Muuse Biixi iyadana iyo marxaladda ciidanka ogna kelmadaan ka oranaya shirka NCC ee lagu baaqayna isagana kelmadaan ka oranaya. aan ku hormaro Muuse Biixi wuxuu abaabulaya colaad. wuxuu la jeedaa Muuse waxa uu shaqeyn weyday laba isku day oo hore, mid kii sharcigu ahaa midna dagaalkii laascaanood buu ahaa. wuxuu labadaba ugu talagalay kursiga inuu iska fadhiyo oo xaalad degdeg ah ku jirnaa yiraahdo. markii la soo afjaray dagaalkii Sool ciidankiisiina la kala diray, wax la qabto iyo wax baxsaday iyo wax dhintay loo qaybiyay. Muuse waa fakaray wuxuu isku qaaday xagga Itoobiya sheeko kale u bilaabay. ayadina waa shaqeyn weyn. wuxuu bilaabay sheekad sharciyada ah maxkamadihii iyo waxa ka horiyay baarlamaankii iyadana waa laga faramaroojiyay. wuxuu ogyahay haddii doorasho la galo Muuse inuu ku daayay. si aan arrintaasi u dhicin waa inuu dagaal iyo colaad geliyaa dadka. ummadda waxaan ugu baaqayaa reer Somaliland, ninkaasi waa kursi doon, idinka dantiina ma wado, mustaqbalkiina dan kama leh, aayihiina dan kama leh. maxaabiista xiran isagoo ka hadlaya arki maysaan. intii dhaawacantay isagoo dhaawacoodii dabiibaya arki maysaan. isagoo dadka dantooda ka shaqeynaya arki maysaan. dhaqaalaha baaba'ay, isu socodku waa dhaqaale, baabuurtaa soconaysa iyo dhaqaalaha suuqyaa xirmay, dad aad u badan oo ganacsataa baa kacay, in badan baa iskaga tagtay oo faqri uga yaacday. dan kama leh. isagii carruurtiisu waa qadeeyaan iyo reerihiisu xogaaga contractiyada ah oo ay haystaan bay ku nool yihiin. waxa la wixii dalkaas soo geliyay iyagaa qaadanaya, cashuurta xooga ay dalka kaga qaadaan iyagaa leh, sida ay ka yihiin kuwa kaleba. maamul goboleedyada oo dhan saas wey. meel kasta ninka ugu sarreeya iska leh waa bakhaar isaga u furan, sandaqaduu leeyahay weeye. marka waxaan ugu baaqayaa qolyaha jiida degan oo dagaalku saameyn gaara ku yeelan doono, fakara oo tashada. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego Muuse, ciidamada fadhiya guumays aad bay diyaar u yihiin. horaan kuugu sheegay war nimankaa kama adkaan kartid. February 6 markaa xabadda riday same day baan hadlay, waxaan kugu yidhi you are a loser, waa lagaa adkaanaya dagaalka. maxaa yeelay nin ku diriraya xornimadiisa iyo gobonnimadiisa oo xaq ku diriraya iyo nin gardarro ku diriraya oo xoog baan cid ku maamulaya waa kuu dowladaynaya. ilaahay u kala roon, dagaalna lagu kala adag oo dadku u kala adkaysi badan. ma ujeeda reerkaasi waa reer dagaal waa galaan waana yaqaan, laakiin cidna inayna dulminayn, weerarna kugu ahayn. nasiib aad leedahay wey inaysan weerar iyagu hadda kugu ahayn oo aysan degaankaaga iyo dadkaaga qixinayn. waa nasiib aad leedahay, ha iska wasakhayn. war arrintaas ka daa, qaska ka daa. say u diyaarsan yihiin oo ay u sugayaan inaad weerar kale soo qaado si ay qaniimo horle iyo maxaabiis horle kaaga qabsadaan. uma malayn kartid. haddaba waa kuu digay, iska daa, ka daa dagaalka. odayaashu hadday qaban karaan ha qabteen, haddaanay qaban karinna ha ka tashadeen. ninkaas iyuu dagaal idin gelin. askartaas soo raacaysa adeer umayd socdaa tahay, reerihiin iyo gurigiin inaad joogto aad qatanaataa laguu qaataa intaad $100 u dhiman lahayd iyo wax la mid a. oo Muuse dagaal siyaasadeed ku gelin lahaa. 18 May wuxuu ku maro doorashadana uu ku baajiyo buu Muuse raadinayaa. qayb ha ka noqon. maxaa adiga dan oo kuugu jira shakhsiyan? qayb ha ka noqon. reerkaasi duulaan idinkuma soo ahee, idinku duulaan ha ku kicinina. waxaan rabaa oo kale inaan saxo kelmad ciidamadii ka guuray laascaanood oo gaalka ayaa aaday. ciidankaasi sida ay ii xaqiijiyeen maamulka SSC waxay ku tageen ismacasalaameyn iyo is-afgarad iyo heshiis iyo waxaba yaraatay khilaaf ma jiro. mudday nimanku meesha fadhiyeen, caruurihii iyo xaasaskii iyo haweenkii in lagu noqdo mushkilad ma leh.
ciidanka meesha joogaana ka badan kuna filan difaaca aagga. midda labaad haddii loo baahdo oo ay wax dhacaan waxay diyaar u yihiin saraakiishii askartuba inay deg deg usoo noqdaan, laakiin reerayowgii iyo faamiliyadii in lagu noqdo ayaa loo baxay. waxyaabaha dacayaadka ahoo dhaqaalay waayeen iyo loo diiday iyo canshuur baa laga qaaday iyo waxaasoo dhan waa fake news, waxba kama jiraan. waxaa kaloo beena puntland baa xiratay baabuur ka soo degay dekeda oo laascaanood laga leeyahay oo ay leedahay maamulku leeyahay, xagga kama jiraan. iyaduna waa been. waxay ii sheegeen madaxdu in baabuurta qabaalka ahi ay mamnuuc ka yihiin inay soo degaan puntland muddo dheer ba ahaayeen. baabuur kastoo marka soo dega waa la dhigaa, dhinac baa loo leexiyaa, waa la qabsadaa ilaa la xaqiijiyo cidda iskale. wax haba yaraatee canshuura oo laga qaaday baabuurta dowladda SSC u socdaa ma jiraan, waa been abuur. wada shaqayntuna waa 100%. taasna kelmadaasna intaasaan ka oranaya. qodobka labaad, madaxweyne xasan sheekh wuxuu tagay Kenya. waa markee mindhaa waa markii 10aad. ruuto marna maynoo yimi may haye maxaa talaa? dowladnimadii madaxweynuhu wuxuu ka dhigtay safara uu isagu iska imaanayo dad guryahood oo xaafad uu degan yahay sideedii uu intaa taagan yahay. Kenya intaasoo jeer u tagay, Ethiopia intaasoo jeer u tagay, Eritrea intaasoo jeer u tagay, Djibouti intaasoo jeer u tagay, Uganda intaasoo jeer u tagay. labada nin oo waddankeena hal mar midkiiba yimi waa ama wax la mid a waa Ismaaciil Cumar Geelle iyo ninka la yiraahdo Abiy Ahmed. inta kale cidina uma imaan. muxuu madaxweynuhu hoos ugu dhigayaa qiimaha dowladnimada? hatagee muxuu la yimi madaxweynuhu meesha la Kenya? wuxuu yiri waxaanu imi amniga shir ku saabsan. aaway madaxdii amnigu hadday tahay wasiiro, hadday tahay taliyayaal, hadday tahay jeneraalo, khubaro amni aaway. madaxweynuhu sida kuwa kale oo dhan sidii bakhaar uu leeyahay inuu bagaash u doontay oo safar sidaa ugu aaday buu keligii socdaa. ciduu la shiray lama yaqaan, waxay isdheheen lama yaqaan. isagoo wax saxiixaya unbaa ajnabigu noo soo gudbiyaa. warka ay ajnabigu noo sheegaanna cali balcad baa wuxuu odhanayaa waa been, oo yaa noo caddaynaya inay been tahay. halka source oo aan haysano madaxweyne markuu safro xataa wariyayaal baa la socda, iska daasha madaxe xataa wariyayaal baa la socda. qiimaha aad leedahay baad hoos u dhigaysaa haddaad reerka maalin walba ag taagnaato. waxaa jira waxa supply and demand markii ganacsiga la joogo. baahida iyo badeecadda diyaarka ah oo la heli karo hadday kala bataan, hadba dhinacay u bataan baa qiimuhu u bataa. haddii badeecaddu badato qiimuhu waa yaraadaa. hadday badeecaddu yaraatana qiimaha bataa oo baahidu badato. baahidu hadday badato qiimuhu kor buu u kacaa. haddaad maalin walba taagan tahay yaa waa lagu nacayaa, macna ma yeelanaysid, qiimo laguma hayo. mutual interest, mutual respect baa dowladuhu ku wada shaqeeyaan. madaxweyne kambaynkii horaa kaa khaldanaayo adduunka oo dhan baan heshiis laahay, aragta inaysan shaqaynayn. markii horaan kuu sheegnay ma shaqayn karto. adduun wada heshiisii ma jiro. adduunka oo dhan mutual respect, mutual interest, baahi maqnaysa ixtiraam labada dhinaca iyo kala danaysi labada dhinaca baa lagu wada jooga. dantaasaan ku siinayaa, dantaa isii. scratch my back, I'll scratch your back. dhabarka iyo xoqana aan dhabarka ku xoqay. ii dane aan kuu daneeyay. ixtiraam aan ku ixtiraamay. haddaa iska ag taagnaatay. madaxweynuhu marka muxuu u yimi? ma amniga u yimi? runta safarkiisu 2 qodob wey. waa qodobka koowaad, madaxweynuhu wuxuu u yimi inuu ruuto ka dalbado, isagaana dalbaday, waana xaqiiq warkaas, inuu isaga iyo Abiy Ahmed heshiisiiyo. wuxuu ku daray oo suugo uga dhigay iyo soos ninkii dheeraa Afwerki in laga qayb geliyo wada hadalka. hadda ka hor baan idiin sheegay Afwerki inuu ballan qaaday haddii uu ku duulo badda Abiy Ahmed isaguna inuu difaaca wax ka gelayo. marka si ma garanaysaa uusan meesha uga bixin xabadaas, marka kelmadaas ah suugada waan ku ammaanayaa madaxweynaha inuusan ka tegin raggii difaaca diyaarka u ahaa. waxaa fiicnaan lahayd inuusan ninkaas meeshii hore uga soo degin oo ah ilaa aad ka tanaasushid oo aad ka noqotid wax ina dhex marayaa ma jiraan iyo wada hadal iyo isaarag. halkaa inuu taagnaado. ruuto hadda wuxuu America iyo adduunka oo dhan u sheegay isagu inuu yahay nabadoonka geeska Afrika,
inuu isagu isu keenayo hawshaana dhammaynayo ma ujeeda qodobkaas qodob buu ahaa isagii abiy axmed oo muxuu u raadinaya hadda inuu la heshiiyo maxaa yeelay maamul goboleedyadii oo dhan baa yaacay oo etoobiya gacanta u galay madaxweynuhu meel khaldan buu garaacaya albaab khaldan buu garaacaya haddaa rabtid madaxweyne inaad xallisid qadiyadan imaaraadka ka saar dalka imaaraadka ka mamnuuc waddanka dibadda u saar etoobiya waxaa gacanta ku haya maamulaya amarka siinaya dhaqaalaha siiya ay ku nooshahay ku jirta talada iyo gacanta imaaraadku axsaan baad u qabtay dowlad walaalaheena oo laga gardaran yahay markii dalka laga eriyey adigu axsaan baad u qabtay iyo wanaag inaad soo celisay wax fiican inaad qabatay maxaa ka heshay maanta madoobe iyagaa saaxiib la-ah way idin heshiisiin karaan ma rabaan dani iyagaa saaxiib la-ah waa ka hadda dhex jooga isagana la aqoon cidda uu la shirayo iyo waxa uu saxiixayo iyo cid ka war haysa wasiir la socda dowlad la socota sandaqad uu leeyahay isaguna u safray muuse bixi iyaga gacanta ku haya inay kugu diraan maahe kula heshiisiin mayaan ma ujeeda abiy axmed iyaga gacanta ku haya inay kugu diraan maahe kula heshiisiin mayaan waxaan maqli jiray meel libax soo galay lo ma joogayso imaaraad baa yimi nabad baa la helayaa dowladnimaa dhismaysa adeer ha ku riyo taariikhdu been iskama sheegto waddan uu tegey oo wanaag ka geystay mataqaan muslimka oo dhan isagaa baaba'ashaa mujrim mufsid ah wey inaad isaga marka soo dhawaysato ood ruuto iyo albaabadooda garaacdo waxaan ceeb ahayn kaala kulmayaan abiy axmed wuu rabaa in la heshiiyo laakiin kelmaddii ahayd ku dhawaaq inaad MOU-giis aad saxiixday January 1st aad ka laabatay soomaaliyana sovereigntigeeda aadan muhaddad ku ahayn iyo weerar aadan ku ahayn kuma ku dhawaaqi maayo wuxuu ceshanayaa dignity isagoo waxba islahayn aad sababan xabadi ka socoto dalkii oo dhanna laga haysto madaxuu ciidda ka ceshanaya maxaa kuu diiday adiguna madaxa ciidda ka ceshatid inaad sidii dowladnimo u dhaqantid stageka caalamiga ahaa sharaf yar baanu ka helnay dowladdii kaa horreysay oo ay soomaaliya sumcaddeeda iyo karaamadeeda soo celisay dhulkaa la jartay meel walba waa taaganta waa lagu munabeelaa inaad meel kasta taagnaatid qiimahaaga hoos u dhacay ma ujeeda qodobka labaad oo u yimi madaxweynuhu wuxuu ahaa inuu shariif qalqaalsado oo maslaxado oo odayaal iyo qabiil u soo maro madaxweynuhu wuxuu isku soo aruuriyey dowladnimadoo dhanna u arkaa agagaarkaas uu degan yahay iyo muqdisho iyo wixii ka jira shariifka ayaa kala muhiimsan dowlada maamul goboleedyada ay hayaan shariifka kala muhiimsan shariifka muxuu ka faa'iiday shariifku wuxuu sheegay war anigu dowlad maahay dowlad nin shacabaan ah aniga hayla lagdamin ruuto iyo abi iyo dadka aad la ma garanaysaa dhiggaaga aad la tartan wuxuu isku dheeraynaya madaxweynuhu nin maamul goboleed haysta oo soomaaliya ka tirsan iyo qof shacab ah oo ama madaxweyne ahaan jiray ama siyaasi hore ah ama wasiir hore ah buu madaxweynuhu la tartamaya leeyahay ninkaasaan ishaynaa ninkaan muxuu iga rabaa ma garanaysaa rag buu ii soo raacay waxaas dowladnimo maaha sheekh xasan sheekhu waxaas dowladnimo maaha waxaas dowladnimo maaha ciyaalka xaafadda iyo ma garanaysaa qabyaalada iyo tollaaye waxaas dowladnimo hore kuu sheegay shariif wuxuu yidhi dowladdan qabyaalad bay ku shaqaysaa intii un baad caddaysay maanta ma ujeeda waxaan la yaabay qodobkayga saddexaadna waxaad u yeertay shirkii NCC oo aad horey u diiday xilligaad rabtay baarlamaanka inaad camcamiso afartuba waxay diyaar u yihiin markay doorashadooda isku caano shubaan oo ay kaa danaystaan inay ku yidhaahdaan waxba kama jiraan dastuur taas xaqiiq mid keliya waafaqsan kuma jiro taas xaqiiq weeye qoro warkaa meel dhigo hal nin oo kugu taageeraya ma jiro wixii aad samaysay oo aad ka bedeshay dastuurka oo qaarkood ay fiicnaayeen sida ra-iisul wasaaraha iyo saddexda xisbi iyo doorasho qof iyo coda iyo magaca madaxweyneyaasha iyo kulli kuguma waafaqsana wixii fiicnaa oo aad samayn lahayd maxaad ula cararaysaa maadaa iska leh xagala geel wax gunti la geliye ka weyn dowlad baa la dhisayaa doorashadeedii dadkii lagala tashan lahaana waa lagala cararayaa guddi doorasho ma jiro anaa wada magacaabanaya 18 aan leeyahay dastuur maxkamad dastuuri ma jirto dastuurna waa laga hadlayaa cid lagu dacweeye lama yaqaan haddii lagaa gar leeyahay oo dacwo lagaa qabo
baarlamaankii waxaysan aqoon bay baasinayaan oo gacanta u taagayaan maxaa yeelay kulli waa wasiir iyo been iyo lacag baa loo sheegay kuwii wasiirada gacmaha dhaadheer taagayay in badan oo ka midii way ogaayeen in been loo sheegay maxaa yeelay saddexna oo saaxiiba oo saddexdaba lagu yidhi adaa lagu siinaya wasiirka oo saddexdii baan la siin ma ujeeda NCC markaad isugu yeertay qaar baad ka tagtay laascaanood horta ma ictiraafsan tahay SSC inay tahay maamul haddaad horey u ictiraaftay aad ku dhawaaqday inay kasoo qaybgelayaan shirarka maxaa uga reeb maxay tahay ujeeddada aad ka leedahay ka reebistooda markaad dastuurka baasinaysa waa ku darsatay maxaa hadda uga reebtay lama garan karo meelaa u socotid waxa uu afka ka yidhaahda xasan sheekh iyo ficilkiisu isma waafaqsana abadan soomaali heshiisa aaway soomaali heshiisa adduunka heshiis laa taasi awalba ma shaqayseen xaqiiqadeediina waa la gaaray waxaa maxaa soo haray waxaa ku xigoo labaad laascaanood dadka jooga calankii soomaaliya babinaya waxay leeyihin midnimadaanu rabnaa qaarna hadday kasii baxayaan qaar horey dheheen waa uga baxnay kii hadda ku rabay baad adigu ka cararaysaa leedahay ka baxadnaa soomaalima kala diraysaa marka habartii gaabnayd inay dalka madax ka noqoto aad u diyaarinaysaa xasanow waxaad ku dambaynaysaa oo xaqiiqa qabso teendhadii afisyooni baad ku dambaynaysaa islaantaasoo farta kugu fiiqaysaad ku dambaynaysaa maamulkaaga oo kusoo koobmay meeyarka muqdisho iyo agagaarkiisa baad u jeedaa waxaad ka qabanaysid lama arko tacab samaysay boobtay wixii la boobi karay ciidamadii burbure argagixisadii hubkii adduunka ugu badnayd baad gacanta u gelisay xaggee wax u wadaa ma la gaaray xilligii aad dhihi lahayd shariif baa wuxuu ohan jiray markaanu kale stop ma la gaaray xilligii stop haddii la gaaray adeerow dalka ha burburine haddii aadan wadi karin ma wadi kartide dal laguma wado safar iyo orod iyo isolation waxaa ka cararaysaa frustrationka iyo buuqa kahor yaalaad ka cararaysaa markaasaa maalinba wadan rabtaa inaad marti ku ahaatid xoogaa dhaqaalaana ku uruursatid oo ku qaadatid sahay safar waxaasi dowladnimo maaha kolley 2 sano hadda waa ka badbaadaynaa dalku waa harayaa waxaad qaadan kartana waad qaadanaysaa insha allahu 2 haray 2 kadibna waa lagaa tashanaya ummaddu ku aragtay inay markii hore kugu khaldameen nimankaas xoolaha ah weligay baarlamaan ka liita baarlamaanka hadda samaysan oo Soomaaliya leedahay kii waxaan arkay shariif inta la yiri kusoo darso 275 ogolaaday kaasaan arkay wax ka liita iyaguna waa ogolaan lahayn wax walba ay ogoliin waxay baasinayaan xeer iyo sharci aysan arag akhriyin xagee lagu ark marka iyaduna xasanow NCC heshiis kulama aha kulama socdaan kulligoodna waa kaa baxayaan maxaa kuu talaa hadda sit down settle down fariiso salmugi tasho la tasho raadso la heshii dadkaagii soo aruurso hadday dani kuugu jirto haddii kale teendhadaas baa inoo ballanaa afisyooni billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu